بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياشا قدرنتا يقيميغا إنغا مدن الله بكحرن channel kan يوتيوب كا إسماعيل عقيلة وسو دبادا برنامج شدينا الله بان idinkugu talgalnay insha Allah ta'ala maanta barnaamijkeena qisooyinka quraaniga ah aan ku soo qaadanaynay ayaan halkan idinkugu soo gudbinayaa insha Allah ta'ala maanta maxaan idin sida maxaase ku soo qaadan doonaa insha Allah ta'ala qiso yar oo aad u cajiib ah ayaan idin soo gudbin doonaa oo qiso diini ah hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo ka hor inta aan barnaamijka guda galin fadlan haddaad nagu cusub tahay walaal subscribe saar si ay dhiirigelin inagu noqoto insha Allah ta'ala waxba kaama dhibto subscribe ta inaguna wax badan ayay inoo taraysaa sidoo kale haddii barnaamijyada aan halkan idinkugu soo gudbiyo aad ka hesheen like dheh sidoo kale ha ka iloobin in muuqaaladeena ama muuqaaladeydaba aad share garaysaan si meelo fogfog ama dad badan ay u gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee allaaba halkan aan idinkugu soo bandhigo sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan mar walba aan idinkugu soo gudbiyo allaaba waxaa tabiica halkan idinkaga soo tabiya barnaamijyadaas oo idil anigoo ah walaalkiin saaxiibkiin Ismaaciil Maxamed Sid Cali halkan naga daawanaysaana waa channelka YouTube-ka Ismaaciil Aqila maanta waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah ta'ala qiso yar oo kooban oo insha Allah ta'ala dhacday ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo marka hore balse waxaan doonayaa in ummadda muslimiinta meel walba joogaan aan la wadaago farxadda ama hambalyada sanadka cusub ee hijriga ee inoo dhashay waa sanadka 1443 sanad wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa in sanadkan sanadkiisa uu nagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo sidoo kale cimri dheeri iyo cibaado suuban hadduu Rabbi weyne ka raali noqdo inta xanuunsan Allah caafiyo inta awlaad la'aan haysatan awlaad baari Allah siiyo sidoo kale inta muraad leh aan macsi ka ahayn insha Allah ta'ala in muraadkooda Allah u saqiro insha Allah ta'ala ayaan alla weyne jalla wa ala aan u weydiinaynaa barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso yar oo kooban sida aan hordhaca barnaamijka aan idinkugu sheegayba waxaa jiray nin reer baadiye ah isla mar ahaantaana masaajid soo galay ninkaas reer baadiyaha ah masaajidkii markuu soo galay wuxuu ahaa nin aad carabiyaadka ugu xildheer ee carabiga aad u yaqaana ayuu ahaa markuu masaajidkii soo galay salaadii la dukanayo uu maqlay ayaa ninkii waxaa dhacday in uu maqlay imaamkii oo dhahaya alam nuhlik alawwaliin miyaan ahayn kuwa halaagaya kuwa safka hore ku jira ninkii markuu maqlo tuhun ayaa galaya safka hore ee salaada ayuu ku jiray wuu ka baxayaa oo wuxuu tagayaa safka dambe ee ugu dambaysa kabiisa intuu qaato ayuu gadaal tagayaa markaas ayuu imaamkii haddana uu leeyahay ileen qiraa'adii wuu sii akhrinayaa thumma nutbicuhum al-aakhiriin kuwa kadibna kuwa waxaan raacinaynaa dambe ama safka gadaal ku jira ayaan raacinaynaa ninkii markuu intaas maqlo ayaa intuu kabiiso isku dhufsado masaajidka carar uu kaga baxayaa insha Allah ta'ala waa kalaam ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin isagoo carabigu yaqaano carabi ahaan oo macnaha ugu fasirmay kuwa horan halaagina markuu maqlo wuxuu sir Allah ilaahay yaan lagu halaagine safkan hore ka bax ee midka dambe tag thumma nudbi'uhum al-aakhiriin kuwa damban ku dareena markii uu sii maqlo safka gadaal ku jiraana kabii intuu isku dhufsado masaajidka carar kaga baxay qisadaas yar ayaan halkan idinkugu soo gudbinaya insha Allah ta'ala guudaan barnaamijkayga maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa Allah waxa halkan idinkaga tabiya anigoo ah walaalkiin saaxiibkiin Ismaaciil Maxamed Sid Cali halka aad naga daawanaysaana waa channelka YouTube-ka Ismaaciil Aqila waxaan idinka codsanayaa mar kale in subscribe ta aad noo saartaan insha Allah ta'ala channelka insha Allah ta'ala muddo kooban lagu kala kiciyo insha Allah ta'ala wax 3 maalin ka yar waxaan rajaynayaa ummada ahlu khayrka in ay ku kala kici doonaan channelkani ay kunka subscribe ay u xiri doonaan 1k hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo sidoo kale subscribe ta ha ka iloobin like saar haddaad barnaamijyadana ka sii share galay muuqaaladeena si dad badan u gaaraan sidoo kale noqo qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan soo dhigno macnaha waxaan ula jeedaa gambaleelka furo inta barnaamijkan midkiisa xiga inuu ku kulmi doono walaalkiin waa saaxiibkiin waa saaxiibka barnaamijka Ismaaciil Maxamed Sid Cali
oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabaadiino nooli kulanti dambe xiise leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu